bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti haboon saaxiibada inagu xiran oo halkaad inaga daawanaysaan waa Runsheeg TV. waa bartaan YouTube-ka ku leenahay saaxiibayaal. qodobada ugu waaweyn aan warka idinku gaarana waxaa kamid ah Saadiq John iyo madaxweyne Farmaajo oo ku shiray Villa Soomaaliya. haddaba maxay ka wada hadleen saaxiibayaal? warbixin xasaasi ah ayaynu idinkaga haynaa. madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha banka dhexe amray inaan laga bixin karin lacagtii laga qabtay Imaaraadka Carabta iyo wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wada tashiga qaran iyo kulankii xalay dhacay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa saaxiibada inagu xiran oo idin haynaa. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan naxariis la idinkaga codsanay inaad subscribe noo saadaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan si warbixinada ugu dambeeya u heshaan idinka alle. saaxiibayaal sida hore warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno. Saadiq John iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay kulan waxa uu ku dhex maray Villa Soomaaliya gudaheeda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo General Saadiq Umar Xasan John ayaa xalay ku shiray amaba kulan uu ku dhex maray madaxtooyada Soomaaliya 8 bilood kadib markii madaxweynaha uu ka xayuubiyay generaalka dhammaan darajooyinkii ciidan. sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in kulankan uu yimid kadib codsi ka yimid General Saadiq John oo baryahan dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho. qof kale oo Saadiq John iyo kulankaasi inuu dhex maray madaxweyne Farmaajo cadeeyay. sarkaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo General Saadiq John uu daba socdo kulan shalay dhex maray taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir. kulankaas oo dhacay amaba ka dhacay garoonka Aadan Cabdullaahi Cismaan Aadan Cad ayaa noqonayay kii ugu horeeyay ee dhex mara Fahad Yaasin iyo General Saadiq John wixii ka dambeeyay markii Saadiq John xilka laga qaaday bishii Abriil sanadkii hore. Saadiq John ayaa xilligaasi ku sheegay muuqaal lagu baahiyay warbaahinta gudaha inuu hakiyo kulan ay yeelanayeen golaha shacabka looga doodaya arrimaha doorashooyinka dalka, isagoo faray xildhibaanada inay dib ugu noqdaan deegaanadooda. Saadiq John ayaa markaasi ahaa taliyaha ciidamada booliiska iyadoo shaqadii laga eriyay wax yar kadib hadalkiisa. maalmo kadibna madaxweyne Farmaajo ayaa ka xayuubiyay dhammaan darajooyinkii ciidamada General Saadiq John. kulanka dhex maray Master John Fahad Yaasin madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay iscafin, waxaana kulankan dhacaya dhexdhexaadinaya amaba fududeynaya xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo laga soo doortay Jubbaland kana mid ah ragga ugu dhow xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saadiq Umar oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa ah musharax u taagan kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa banka dhexe amray inaan laga bixin karin lacagtii laga qabtay amaba garoonka Aadan Cad looga qabtay Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray go'aan ka dhan ah dib u celinta lacagta dowladda Imaaraadka ee lagu qabtay ee galabta uu ra'iisul wasaare Roble ballan qaaday in xukuumaddiisu ay dib u celinayso. madaxweyne Farmaajo oo fariintan ku socodsiinayay gudoomiyaha banka dhexe ee dalka ayaa sheegay in lacagtaasi sifo sharci darro ah dalka lagu soo geliyay 8 bishii Abriil ee sanadkii 2018. madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyaha banka dhexe ka dalbaday in uusan ogolaan in go'aanka Roble sanduuqa dowladda looga bixiyo lacagtaasi, isagoo go'aanka lacagta lagu soo celinayo ku tilmaamay mid nin qaatay. sidoo kale wareegtada madaxweyne Farmaajo waxaa lagu xusay in lacagtaasi ay waxyeeleyn karto amniga qaranka iyo dhaqaalaha dalka haddii ay ka baxdo qasnada dowladda. waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas'uul uu gaaray lagu bixiyo lacagtaas iyadoo aan la marsiinin hannaan waafaqsan shuruucda dalka, ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka golaha wada tashiga qaran ee mar kale xalay dib u furmay amaba hoteelka Dakaale ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin. qoraal uu xalay soo saaray afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim ayaa lagu yiri waxa soo gabagaboobay kulankii ay caawa hotel Dakaale kula hayeen madaxda golaha wada tashiga qaran ee looga arinsanayay doorashada, kaasoo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. shirku wuu sii socon doonaa insha Allah, waxaana la filayaa inuu ka soo baxo gunaanadka warmurtiyad rasmi ah oo quseeya arrimaha doorashooyinka sida hufnaanta doorashada, waqtigeeda iyo amniga. sidaan xogta ku helin waxa
weli la isku mari la'yahay arrinta amniga iyadoo ra'iisul wasaaruhu doonayay in warmurtiyeedka ka soo baxay shirka lagu daro in amniga guud ee dalka lagu soo wareejiyo haddii kale aanay dhici karin doorasho hufan xitaa haddii shirka sidaasi isku raaco madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan marnaba ogolaan doonin inuu amniga wareejiyo balse waxaa jirta dood ah in sidaasi ay beesha caalamka ku qasbi karto haddii golaha wadatashiga qaran ay isku raacaan si kastaba madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo Koonfur Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo Cabdicasiis Laftagareen ayaa weli diidan arrintan iyaga oo ku doodayay in amniga dalka uu ka baxsan yahay arrimaha doorashada waxaa sidoo kale sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu horay amniga doorashada ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha shirkan ayaa la filayaa in mar kale uu maanta dib uga bilowdo hase yeeshee waxaa jirta cabsi ah in shirkan uu burburi karo ama aysan ka soo bixi karin oo qodobo la taaban karo oo wax weyn ka bedeli kara xaaladda cakiran ee doorashada dalka Abiy Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay siyaasiyiin iyo wariyaal caan ah dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka diidaysay wariyaha caanka Iskandar in ka badan 18 biloodna u xirnaa dowladda Itoobiya Iskandar ayaa la xiray bishii Juun 2022 kadib dilkii musikaysti waxaana uu ka mid ahaa dadkii lagu eedeeyay hurinta rabshadihii ka dhacay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ugu weyn dalkaasi Oromiya sidoo kale Jawaahir Maxamed iyo Baqlaal Gabra oo gudoomiye iyo ku-xigeen ka kala ahaa xisbiga OFC ee Oromada ayaa la xiray dabayaaqadii Juun 2022 kadib dilkii fanaanka Hajlu Jawaahir Maxamed ayaa xilligaasi lagu eedeeyay in uu waday kicin bulsho iyo inuu xoog kula soo wareegayay meydka fanaanka oo lagu aasirabay gobolkiisa dhowr jeer ayaa maxkamad la soo taagay walow aysan jirin wax dambi ah oo lagu soo oogay cadeymo waxaana tiro dhowr jeer ah garsoor ku dalbadeen in la keeno cadeymo lagu qanci karo oo ku aadan eedimihiisa oga hoose ayaa tibaaxayay in Abiy iyo siyaasiyiinta Oromadu geed dheer iyo mid gaaban ba ay u fuuleen sidii loo xalin lahaa tabashooyinka Oromada dhexdeeda xisbigana looga sii deyn lahaa ragga waxgalka u ah Oromada Abiy maanta waxa uu sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin iyo iscafin guud taasoo gogol xaar u ah sii deynta siyaasiyiinta Oromada Kuuriyada Koonfureed ayaa kordhisay xayiraadaha socdaal ee 6 dal oo ay Soomaaliya ku jirto Kuuriyada Koonfureed ayaa kordhin doonta xayiraadaha socdaal ee 6 wadan oo ay ku yaala bariga dhexe iyo Afrika iyo sidoo kale qaybo kamid ah Filibiin 6 bilood sababtoo ah khatar amni oo daba dheeraaday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay Jimcihii mamnuucidda loo qorsheeyay in uu dhaco Juun 31 dalalka xayiraadaha lagu soo rogay waxa ku jirta Soomaaliya waxa sidoo kale kamid ah Ciraaq, Suuriya, Yemen, Liibiya, Afghanistan iyo gobolka Koonfureed ee jasiiradda Filibiin sida ay sheegtay wasaaradda dalka la mamnuucay ayaa waxa soo food saartay sida ay sheegeen khatar joogto ah oo weerarada argagixisada iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ay u badan inay sii jiri doonto muddo dheer sida ay iyagu aaminsan yihiin wasaaradda Ciraaq, Suuriya, Soomaaliya, Afghanistan ayaa la mamnuucay 2007 Saul ayaa mamnuucday Yemen 2011 Liibiya 2014 iyo jasiiradda Filibiin 2015 waa hagaag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna warkii aad ka daawanaysaa Runsheeg TV fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan xariis leedin kaga codsanayna subscribe inoo soo dhaan like na nagu dhiirigelisaan gamalaalka furataan si warbixinada ugu dambeeya oo heshaan idinka